wadadan waxa ay ka mid tahay wadooyinka uu dhagax dhigay dhismaheeda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa ay isku xirtaa degmooyinka Xamar Jajab Xamar Weyne iyo degmada Shangaani ee gobolka Banaadir marinkeeduna waxa uu muhiim u yahay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku nool saddexdan degmo munaasabada xarig jarka waxa goobjoog ka ahaa dadweynaha saddexda degmo ku nool iyo ku xigeenada howlaha guud iyo arrimaha bulshada waxaana xariga ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish marka hore waxa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Faarax waxa uu tilmaamay in wadadan ay tahay wadadii ugu horeysay tan iyo markii xilka loo magacaabay uu xarig jarkeeda ka qayb galo isagoo bulshada ku dhaqan saddexda degmo ka dalbaday inay ilaashadaan dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho ku yaala aadan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog u ahaado wado aad u qurux badan oo maartay bulshada Soomaaliyeed muhiim u ah inaan maanta ka soo qayb galo furitaankeeda anoo xilka ku cusub waxaan rajaynayaa insha Allah in maartay wadooyinka loo dhiman insha Allah inaan goobjoog ama bilowgooda aan qayb ka noqon doono insha Allah waana ku mahadsantiin mudane gudoomiye ku soo dhaw shacabka magaalada Muqdisho oo adiga madaxda u ahayd oo maan diyaar ku ah inay ku soo dhaweeyaan furitaanka wadada kala soo qayb galaan haddana ila soo dhaweeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho insha Allah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku hoolan yahay dhismaha wadooyinka dhammaan ee dhaxmara degmooyinka gobolka Banaadir waxaana dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka ka dalbaday inay ilaashadaan badqabka iyo nadaafadda wadooyinka la dhisay waa wadadii aan dhagax dhignay ugu horeysay isla markaas maantay aanu joogno xarig jarkeeda waxa jira wadooyin kale oo haddii alle idmo mar dhow ayagana aan xarig jari doono oo dhismahooda uu soo dhammaaday waxaa jira kuwa kale oo hadda dhismahooda uu socdo oo aan rajaynayo ayagana marka ay dhammaystirmaan inaan sidaan oo kale isugu imaan doono si loo xarig jaro wadooyinka magaalada Muqdisho sida aad ogtihiin burburkii ayay ku baaba'een dhammaantood balse dadaal xilli dhexe bilowday la sameeyay oo maamuladii dawladihii hore ay bilaabeen iyo bulshada oo runtii ayaguna kaalin muuqata ka qaadanayay ayaa la soo nooleeyay wadooyinkii burburay qaarkood sunnadaas wanaagsan si halkeedii looga sii wado ayaan annaguna qaybta nooga aadan ka qaadanay taasoo runtii aan dhihi karo kaalinta koobaad ayaan uga jirnaa dhismooyinka wadooyinka gobolka Banaadir waxaan rajaynayaa haddii aan leedbo muddo sanada ama ka yar haddii aan leedmo inay nagaba soo dhammaan doonaan dhammaan wadooyinka gobolka Banaadir ku yaal dhismahoodu oo runtii sida hadda aan ku wadno hadday ku sii socdaan aan rajaynayo in wadooyin nadiif ah bilic leh laydhka ama soolarka leh inaan heli doono sanad kadib oo dhammaystiran dhammaan magaalada Muqdisho gobolka Banaadir mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn u ah degmooyinka Xamar Jajab Xamar Weyne iyo Shangaani inay nasiib u yeeshaan wadadii ugu horeysay ee aan bilownay oo ah runtii wada muhiim ah marta xeebta iyo magaalada u dhaxaysa taasoo ka mid ahayd wadooyinka ku burburay muddadii burburka waxaa laga rabaa marka nasiibkoodaas inuusan noqon mid ay khasaariyaan oo ay ku dadaalaan kaalinta uga aadan oo ah wadada nadaafadeeda bilicdeeda ay kala dagaalamaan cid kasta oo wax u dhimaysa Ibrahim Xaaji Yuusuf warbaahinta gobolka Banaadir magaalada Muqdisho.